gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadaniga gobolka Awdal mudane Maxamed Aadan Suldaan oo goor dambe duurkii maanta la hadlay telefishanka caalamiga Star TV ayaa ugu horeyntiiba waxa hadalkiisa uu ku iibfuray raaligelin waxaan doonayaa ugu horeyn apologize iyo Ambassador Ahmed Hussein Oomane oo nin wasiir ahaa Oomane oo Soomaaliland ka soo ahaa oo hadal aan qaban oo dilqaafa oo gafa oo si khalad u dhacay maalintii dhaweeytay gaaray aad iyo aad baan Ambassadorka horta uu mataqaana uga apologize uga bixinaya isaga iyo dhammaan qoyska reer Oomane balaaran baa apologize baan bixinaya anoo ku hadlaya magacayga iyo magaca xisbigaba intaasi kadib gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadaniga gobolka Awdal mudane Maxamed Aadan Suldaan waxa uu la wadaagay dhacdo uu saaka la kulmay oo ahayd in gaadhigiisa lagu horgooyay gaadhiga taliyaha ciidamada wadooyinka ee traafikada oo ay la socdaan raxan ciidana balse waxa uu gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadaniga gobolka Awdal uu sheegay in markii dambe taliyaha ciidamada traafikada gobolka Awdal uu telefoon kula wadaagay in waaran soo qabasho looga soo jaray magaalada Hargeysa waxana gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadaniga gobolka Awdal mudane Maxamed Aadan Suldaan oo arintaasi ku tilmaamay mid nasiib darro anagu waxaanu xisbi u nahay mucaarad waxaana gudoomiyaha xisbiga wadaniga gobolka Awdal waxa ayaan darro ah oo nasiib darro ah in gobolka Awdal ay maxkamad ku taalo oo ay xeerlaaliye joogo in waaran Hargeysa laga soo jaro leeyahay soo qabta gudoomiyaha gobolka Awdal ee wadani soo qabta leeyahay waa nasiib darro ku absatay Soomaaliland guud ahaan ma garan karayo sababta waxa soo shuruuc looga gudbayo waxa waajiba way saaran aniga ama waaran ha soo goostaan oo gurigayga ha yimaadaan oo gaarigayga waxa lagu horgooyay gaariga taliyaha traafikada ninka Axmed Daahir leeyahay gaarigayga ugu horgooyay gaarigiisa isagoo wata raxan ciidana ma garan karayo sababta keentay wuxuu igu jawaabayay markii dambe telefoon ay soo diray waaran baa Hargeysa laga soo jaray ma garanay maxkamadda gobolka ee degmada Gortalaay cid dacwad aniga ay qabtay maxkamadda dacwad ka furan doontaa lawyer baan qabsan doontaa halkaas ay ka hadli doontaa haddii ay tahay xoog iyo military waxaan horjooga ka ahay institution 240,000 oo qof institution ka ah waxay doonayaan isku dhac ma jeceli inay isku dhacno booliiska isku dhacno ma jeceli taageerayaasheeda waxaan leeyahay istajiya ha ka hordhicina waxba dibad baxyaa sameynina istajiya ma leeyahay taageerayaasheeda dhanka kale gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadaniga gobolka Awdal mudane Maxamed Aadan Suldaan sidoo kale waxa uu ka hadlay xadhiga gudoomiyihii hore maxkamadda rafcaanka gobolada Awdal iyo Salal Idris Farax Muuse muddo 3 maalmood ku xidhan saldhigga magaalada Boorama oo maayirka degmada Boorama Salebaan Xasan Xadi uu ku soo eedeeyay rasaas habeen dhaweyd la dhacay gurigiisa Idris Farax Muuse wana qaana si fiican baan u qaana nin maayirku rasaasiyay la oran karana sharaftiisa aniga lama qumana waa nasiib darrade shalakii waxay taray hadaan maanta abaal gashan waayay inaan wanjelo waxa weeyaan waa hab dhaqanka madaxda maanta ka talisay magaalada joognoyn waa nasiib dareynteeda laga aad iyo aad baan uga xumayaan waana ka taxseenaya ayadana aad u la yaabanahay dad maalin kasta la iska xirayo oo Hargeysa loo sii qaadayo oo kuwii ugu dambeeyay saaka la qaaday war maanay jeel lahayn magaaladani maanay jeel lahayn maxaa jeelasha loo dhisay isu duwayaal iyo agaasimayaal iyo loo soo magacaabaya xeerlaaliye iyo garsoore maxkamadeed maxaa loo soo magacaabaya waxa laga dhigay magaaladii Boorama substation hoostaga magaalada guntiga gabagabadii gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadaniga gobolka Awdal mudane Maxamed Aadan Suldaan sidoo kale waxa uu telefishanka caalamiga Star TV la wadaagay erga odayaal oo cabasho u la timid oo ka socotay maayirka degmada Boorama Salebaan Xasan Xadi waxay yimid iyaguna odayaal cabanayay oo inanka maayirka adeer u ahaa anigu waajibka ummadda iga saarani waxa weeye in qofku dambiga uu ku jiro ama khaladka uu leeyahay loo sheego markuu maamul yahay khaladka ku jiro in loo sheego 2 bilood oo dama ayaa magaalada Boorama la gubay masaakiintu cid u hadasho ma lahayn cid wax u qabatay ma jirto cid wax weydiisay ma jirto maalin kaliya isaga xabad baa la igu soo riday oo yiri
maalintiibaa maanta ula fadhii la'aa waraaway ummaddaad mas-uulka ka ahaydde halkay mareendee haddaad adigu isku damqanayso ma lafaagaad mas-uul ka ahayd waa su'aal waa Cimraan Xuseen Aadan wararka muuqbaaya telefishanka caalamiga Star TV Boorama.